بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan u mahad celinaa suxufiyiinta Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan wiilal iyo gabdho nagala soo qayb galay barnaamijkan aan ku muujinayno dareenkeena iyo sida aan uga xunnahay xariga sharci darrada ah ee maanta 44 jirsaday ee lagu hayo Maxamed Cabdiwahaab Nuur Mahdi oo ku magac dheer Abuja oo ahaa ama tifaftiraha idaacadda madaxa bannaan ee Higsi oo si sharci darro ah loo xiray si sharci darro ah xabsi ugu jira wax maxkamada aan la horkeenin isla markaana aan loo ogolaanin xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadiniinta dhan ay leeyihiin oo ah in qof kasta oo la xiro ama la qabto la geeyo maxkamad loo sheego wax lagu haysto loo ogolaado in qoyskiisa ay booqan karaan loo ogolaado in dhakhtar uu heli karo isla markaasna la siiyo xuquuqda kale ee nolosha oo ay ku jirto caafimaad iyo in meel fiican lagu hayo nasiib darro Maxamed ilaa iyo maanta aabihiis iyo waxa ay garab taagan hooyadiis lama oga meesha lagu hayo sida loo qabtana waxay ahayd sharci darro dastuurka dalka ee federaalka ee kumeergaarka wuxuu sheegayaa qof kasta oo la xiro ama la qabto in la siiyo xukun cadaalad ah oo loo sheego wax lagu eedeeyo marka ugu horeyso 24 saac ugu badnaan 48 saac nasiib darro taas ma ay dhicin oo maanta halkan aan taagannahay 44 maalmood ayaa ka soo wareegatay xilliga uu xabsiga ku jiro waxaana taas ay muujinaysaa sida ay sharci darro u tahay iyo sida dastuurka dalka aysan dawladda Soomaaliyeed u ixtiraaminin shaki weyn waxa naga haya in dawladda madaxdeeda sare gaar ahaan dadka amniga qaabilsan arrintan ay ka warhayaan haddii ay og yihiin waa ceeb waa dhabarjab waa dhibaato kale oo ka dhan ah xorriyadda hadalka iyo tan saxaafadda ee dalkan Soomaaliya haddii ay madaxda ogeyn oo aysan ka warqabin waxaan dalbanaynaa si degdeg arrintan ay ku baaraan dadka ka dambeeyay cadaalad horkeenaan Maxamedna u ogolaadaan xukun cadaalad inuu helo haddii Maxamed Abuja wax dambi lagu hayo hal loo cadeeyo hana loo sheego qareen ha loo ogolaado haddii aan dambi lagu hayna waxaan dalbanaynaa si degdeg ah in lagu soo daayo waa aabe 3 caruur ah waa nin miskiin oo qoyskiisa u shaqaysanay waa suxufi kaliya waxaan ognahay oo aan hubnaa waxa loo haysto inay salka ku hayso qoraallo uu qoray oo ku saabsan ciidamada amniga haddii wax inta ka badan ay jiraan waa in la cadeeyaa oo la sheegaa waxaan dalbanaynaa cadaalad Abuja inuu helo dawladda waxaan ka dalbanaynaa in dhageysato oo ay maqasho oo ay qoyskan maqasho oo ay si degdeg ah uga jawaabto codsiga suxufiyiinta Soomaaliyeed ay soo jeedinayaan waxaan halkan u taagannahay cabasho aan ka qabno xariga muddada dheer uu xiran yahay wariye Maxamed Cabdiwahaab Abuja oo la xiray muddo hadda caawa ay u noqonayso 45 cisho oo ah hal bil iyo bar waxaana uu ku xiran yahay sidaan aaminsannahay sharci darro sababtoo ah ilaa hadda wax maxkamada lama keenin wax sharci la hor keenay ma jiro xitaa sababta loo haysto lama sheegin marka waxay muujinaysaa annaga haddaan nahay suxufiyiinta Soomaaliyeed waxaan dalbanaynaa qof kasta in uu cadaalad helo sharciga tilmaamaya sharciga saxaafadda qorana tilmaamaya inaan qofna la iska xiri karin dastuurka ayaa madax banaynaya qofka inuu xaq u leeyahay in ma dacwad lagu soo oogi karo laakiin 48 saacadood aysan ka badan waqtiga la haysto waa waqti dheer waxay muujinaysaa in ay tahay wax loogu talagalay haba yaraatee ilaa hadda maalintii la xiray ayaa waxaan xiriir la sameeyay wasaaradda warfaafinta wasiirkeeda iyo adag kale oo ku shaqo leh xarigaas oo aan weydiiyay xariga iyo sababta u xiran yahay ilaa hadda wax noo soo jawaabay oo sheegay sababta u xiran yahay ma jirto sidaa darteed waxay muujinaysaa annagu ma nihin dad sharciga ka weyn waxaan nahay dad sharciga jecel u hoggaansan laakiin kama yeelayno dawladdu inay haba yaraatee mar walba ay sharciga ayada ay samaysay ee dastuurka dalka u yaala inay ayada ku tumato annagu waddankan jecelnahay dawladnimadan ugu horeynaa laakiin haba yaraatee ma aqbalayna mana aqbali doonno qof inuu sharci darro ku xirnaado intuu xiran yahayna waa qaylinaynaa waa wadaynaa waxaan rabnaa in sharciga qof walba uu hoggaansamo sharcigana loo wada dhaxeeyo Abuja waa qof Soomaaliyeed waa wariye ka shaqeynaya sabab kale oo loo xiri kara ma jirto waxaan aaminsannahay in shaqadiisa loo xiray haddii aan shaqadiisa loo xirin sharciga ma la horkeeno wax la qariyo qurun baa ku jira ma aqbali karno sababta loo haysta sida darteed sidaan wariyaashii kalaba ugu qaylinay ayaan u sii wadi doonaa mana joojin doono cabashadeena ilaa inta laga soo deynayo wuxuu ahaa nin madi aabiisa halkan jooga nin reer u shaqeynayo ahaa asagoo kaliya reerkii u shaqeynay in asagii la lugooyo oo meel lagu xirto sabab lagu xirtana aan la sheegin waxay muujinaysaa xoog tooxsi inay tahay sharci darro qof kasta oo ku lug leh waxaan cambaaraynaynaa haddaan nahay wariyaasha Soomaaliyeed sida halkan uga dhawaaqayeen in si degdeg ah oo shuruud la'aan loo sii daayo maadaama aan sharciga lagu soo xirin sharcina lagu haysan
saaka intaasay wariyaasha isugu yimid waana sii wadi doonnaa inta laga helaayo in la sii daayo wariye abuuja qof kastoo wariye Soomaaliyeed waxa ugu baaqaya in ay saxiixaan petitionka qofkaas maaragtay xorriyadiisa lagu raadinayo waa lagu xadgudbay waa la xaq daraystay waxaan aaminsanahay waliba maaragtay dadka Soomaaliyeed dadka qaarkiis waa loo dhagan nugul yahay laakiin abuuja arintiisa waxaan u malaynayaa in uu maaragtay lagu riixayo inuu ka dhashay qabaa'ilo aan hadlin xildhibaanadoodu ay hadlin laakiin annaga taagan oo u hadlayna waxaan rajaynaynaa in si degdeg loo sii daayo raxiim waxaan halkan saaka u taaganahay annagoo ka xun xariga sharci darrada ah ee muddada 45 cisho gaadhaysa uu ku xidhan yahay wariye abuuja kashilaawahan waxaan ka mid ahay wariyaal ku booqday isagoo muddo 3 cisho ah ku xidhan godka Jilcow waxaa la noo sheegay inaan wax dambiya lahayn sifa sharci darra inta la sii daayay haddana dib loo xidhay taas waxay cadeynaysaa in waddanka uu sharciga ka jiray lagu tumayo waxaan cod dheer ku sheegaynaa in wariye abuuja xorriyadiisa dib loogu soo celiyo waxaan dareemaynaa in wariyaal kale oo la xidhay la sii daayay laakiin asaga wariye abuuja oo aynu dareemayno in muddo inta laga xidhan yahay kashilaawahan iyo dhammaan warbaahinta muqdisho ku dhaqan waxay cod dheer ku sheegayaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo waliba wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye haddii aan warbaahinta madaxa bannaan aan xuquuqdooda la siin waa awoodda saddexaad awoodda afraad ee waddanka waxaan ku cod dheer ku sheegaynaa wariye abuuja oo ka mid ah wariyaasha madaxa bannaan isla mar ahaantaana ahaa tafatiraha idaacadda higsi oo ka mid ah idaacadaha madaxa bannaan waa in xorriyadiisa la siiyaa muddo 45 cisho uu xidhan yahay dawladdu waxaa noo sheegay waliba hay'adda nabadsugudu noo sheegtay inaan wax dambiye lagu haysan markii la soo daynayay waxaan ka mid ahaa wariyaashii ugu tagay godka Jilcow waxaa la sheegay inaan wax dambiye loo haysan haddana isagoo la sii daayay dib si sharci darra loo soo xidhay waana uu xidhan yahay ilaa hadda meel uu ku xidhan yahay ilaa hadda lama oga waa dareemaysaa waa aabe madiya waa madi haddana waa aabe 3 carruur dhalay wuxuu u shaqaysanayaa carruurtiisii wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ku dhaqan magaalada Muqdisho aan ka tahriibin waddankiisii ku dhaqan haddii laakiin lagu tagrifalo oo sifa sharci darra uu inta u xidhnaado madaxweyne iyo ra'iisul wasaare waxaad dareemaysaa in waddanka aad mas'uuliyadda u tihiin in wax badan ay qabyo tahay waxaan cod dheer ku sheegaynaa in xorriyadiisa dib loo siiyo oo si hagarliya ama si shuruud ku xidhnayn in dib loo siiyo haddii uu dambi galana cadaaladda la horkeen waddanku cadaalad buu leeyahay waxa ayaan daraa inaan ku noolnahay waddan wariyanimada ay tahay dambi يعني ودن لو أقونسين هاي قفك وريها وح كستو وقرا إنه يهي وح وكدن بابي أما ومدح وجفيه إنه وحلا قرا ورنا الله الشيء وحقرا يا دستورك وحنا أقول قف والباء إنه وحي وأركو أمام مقلا الصحة وجدبيه أبوجا وحوكم دي هاي ورياش الصوماليات وحكا قرا ورباهين تيد عدوين كدعاء waxaan u arkaa xariga abuuja in marka hore uu ahaa sharci darro sababtoo ah isaga oo aan la eedayn warqad maxkamad la haysan ayaa la xiray 3 mar ayaa la xiray xarigiisa mar kamida lugta laga jibiyay godka Jilcow oo la sheegay inuu in la joojiyay oo aan qof lagu xiri karin xaalad bini aadanimo markii la arkayna waa ku xiran yahay waxaan u arkaa in abuuja lagu haysto cadaalad darro haddii ay dawladda ama dadka xirtay ay u arkaan in abuuja uu yahay dambi leeyahay waxaan codsanaynaa in maxkamad la keeno oo cadaalad uu helo abuuja iyo inta la midka ah ee xaqdarrada haysana waxaan leeyahay ilaahay cadaalad ha siiyo waxaan aaminsanahay aniga shakhsiyan ka shaasha ahaan abuuja haddii uu ka dhalan lahaa reeraha afarta ah ee Soomaaliya maanta كبود إنه سن ساعة حرنان لهين والله أو بالله أو طلعي أبوجا إنه سن ساعة حرنان لهين دور إيا أفرتن مالمود وحرين هاي أدور رير كاسة ميا أنت دوريان نقطي هذانا ورك النوع عسى شيء كرتوانا أيان ضرو وحن هالجوان توبو ودنك هاللوس النادو عدالة هاللقاتو أبوجنا هدي الدم بكو هيسان محكمة هوركينا هذا كو هيننا ورأننا رالي كوه سيديسا كسو دايا وان اوغين عدد حرتين إن هذا الرالي قلين كبحنين أقول قولي هذا
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وأمال يوسف معلن وحن كم إذا ورياشة كل قن مقالة مقدشة وحن سي حشمت كلها هنتهاي عن دولة فدرال كالصومالية وجوه الرئيس مدحونها دولة فدرال محمد عبد الله فرماجو يرئيس الوزراء حسن علي خير أنا وقعد سنينا إن حريتي سلسية وريا أبوجو أو مدة أفرتن يدور عشاء كحر مقالة مقدشة سوى البؤ حرين هاي ينوع والبؤ الله حرب وحن دولة فدرال كقعد سنينا إن دب حريتي سلسية هدي دم باللغة السنة لما سيو صفة شرعية هذه كلنا لسود دايو ورنتي أبوجا ملهن حلبان ملهن قبيل أنا قبيل أنا حلبان نوعه وحن كعد سنة دولة فدرال كأون عد دير وقعد سنة أنا جبر runtii aadna ii damqayso abuuja oo muddo dheer halkaas ku xiran cid u taagan aysan jirin oo anaga ka ahayn wariye ka ahaan inuusan haysanin cudurraa jira wax kasta jira dawladda federaalka ah waxaan mar kale cod kale ku leeyahay fadlan abuuja la soo daayo bismillaah aniga ku hadlaya magaca warbaahinta higsi okay bismillaah aniga ku hadlaya magaca warbaahinta higsi waxaan codsanayaa in wariye abuuja tafatiraha idaacadda higsi xuriyadiisa la siiyo sidaan la socono wariyaha wax dambi ah ma lahan hay'adaha dawladda gaar ahaan hay'adda nabadguddo waxay sheegtay inuusan dambi lahayn laakiin soo deesmadiisa kadib wuxuu 45 habeen xabsi ugu jiraa su'aalaha lagu soo weydiinaya oo caawa xaafadaada waad u soo laabanaysaa gurigaaga waad ku soo laabanaysaa qof muwaadin in lagu wado isla caawa waad soo laabanaysaa misna wax dambi aan lahayn haddana la xiro waliba uu xabsi ku jiro muddo markaa 45 habeen ah waxaan codsanayaa cod dheeran dawladda uga dalbanayaa wasaaradda warfaafinta guud ahaan dawladda oo ugu horeeyo madaxweynaha dalka in wariye abuuja cadaalad la siiyo wariye abuuja cadaalad u baahan yahay waa markii saddexaad oo hay'adda nisa kaliya ay xirto isla markaana ay jug gaarsiiso xitaa bishii ramadaan 29kiisa isagoo sooman ayaa gaari lagu horjaray kadibna waa la dhibaateeyay cid ka hadasho hay'adda nisa ma jirto dhibaatadaas iyadoo markaa lagu sabarsiiyay wariyaha ayuu haddana dhib kale la kulmay laba mar ayaa la xiray muddo kooban oo 4 ama 2 toddobaad gudahooda 45 habeen marka in qof bilaa sharci uu ku xirnaado waa wax laga xumaado dawladda waxaan ka dalbanaynaa haddii aanu nahay warbaahinta Soomaaliyeed gaar ahaan idaacadda higsi anigu ku hadlaya maamulka idaacadda in wariyaha xuriyadiisa dib loo siiyo 29kii bishii soo qaad ee aan soo dhaafeynay 2019 ayaynu ku aadanay maxamed isagoo gurigiisa ku soo socda ay baabuur ku horjareen sida hore loo sheegayba xabaday ku gameen lugna waa ka jabiyeen saldhigga shibis ay ku xirteen habeenkii 8 saacan ka soo daynay subaxdina xad gudubka lagu sameeyay ayuu ka diyaariyay qoraal war ka diyaariyay maxamed sidaas xilligaas waxay ka bilowday sidii ay uga daba qaateen niisa shibis ilaa iyo hadda heerkan ay ku keeneen waa caga jugleynaa jiro jirdila jiro lagu ay ka garaaceen innaha waa ka xireen meel qaas oo ay geysteen wax la qarihay male intaasoo dhan waxa ka dambeeya niisa shibis waa is yaqaanaan waa is ogyihiin saadarteed waxaan dawladda ugu horeeyay maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre xildhibaanada labada gole waxaan ka codsanayaa in aysan ku fiirinin shacbiga Soomaaliyeed qaas ahaan suxufiyiinta lagu tagrifalaayo lagu joorfalaayo lagu xadgudbaayo la dhibaateynayo oo haddana sidii eri carbeed camal meel la isaga xareysanayo xabsiga ma aha baqaar ma ahan oo shakhsiyaal ugu furan yahay waxa dareemaysaa baqaaradii in laga dhigtay xabsiyada in laga dhigtay dawladda baqaar oo marna qalab dhiganaysid marna ka soo saaranaysid marka waxaan dawladda ka codsanayaa iyadaha sharciga in ay arintaasi wax ka qabtaan maxamed cabdiwahaab nuurne oo ku xiran awood sheegasho iyo ku tagrifal iyo ma samayn kartid in ay fiiro gaar u yeeshaan xoriyadiisana ay siiyaan intaasaan ku soo koobaa salaam ma rabo inaan ku dheeraado dad iga aqoon badana inta badan waxa jira ka hadlay waxaan rabaa laakiin inaan xoojiyo arinta leeyahay cadaalad iyo cadaalad daro arinta horta waxaa la rabaa inay ka jawaabto ay ka jawaabaan hay'adaha cadaaladda ee dalka wali ma aan arkin qof shakhsi muwaadin ah oo intaan maalmood xiran iska badaa ninkan oo ah wariye Soomaaliyeed oo ka mid ah
ama hay'adaha dalka marka la yiraahdo hay'adaha afraad ee wadan uu leeyahay ayaan awoodeena u bawacdignaa aabanahay haddana muhiimadu waxay ahayd dhibaatada taagan horta marka koowaad in la ifiyo way qurux badan tahay haddii dambi wariyuhu uu gali karaa malaa'ig ma ahan haddii uu dambi galaa muhiimadu waxay ahayd wasaarad warfaafineed baan anaga hoos tagnaa absolutely anigu ka sharmaaka ahaan waxaaba u arkaa in meel ka dhac ay tahay in haddii wariye qalad uu galaa isla markii in qof ka doona ama qofka u dhow inuu iska soo xirto wariyaha sharci iyo kala dambeyn iyo nidaam buu wadanka u leeyahay waan aaminsanahay dalku dawladu u leeyahay waan aaminsanahay laakiin waxaan u baahanaa waxay tahay in hay'adaha cadaaladdu ay shaqeeyaan wariye Abuja waa inuu cadaalad helaa dhammaan waa lagu celceliyay eragaas laakiin waxaan leeyahay in waxaan anigu ka sharmaakaan 3 meelood loo meel aan aaminsanahay inaysan madaxda sare dalka aysan ka warhaynin haddii ay ka warhayaan oo arinta laga aamusin waxaan u arkaa meel ka dhac wadanka oo dhan u soo hooyay waa guul daro wadanka u soo hooytaan u arkaa haddii arinta iyadoo laga warhayo 44 cisho oo wariyo meel ku xiran yahay iyadoo aan su'aal la weydiinin iyadoo aanan muxuu ahaay maxkamadii la keenin iyadoo hay'adaha amaanka marka qof kale wareysto uu ku dhahay kama warhayo qaybna ay leeyihiin dambi lagu ma hayo berime saadan baa la soo deenayaa nagu la wareeriyay waxaan codsanayaa waxay tahay hay'adaha cadaaladda anigoo ku hadlaya magaca maamulka telefishinka Somali News TV xafiiskiisa Muqdisho waxaan aad u cambaaraynaynaa saxafiga Abuja xidhiga 44 maalmood ee uu dawladda u xiran yahay ilaa haddana uusan cadaalad helin arinta waan cambaaraynaynaa waxa aan la qabaa wariyaashii ugu horeeyay ee arintaasi ka hadlay aad baan u cambaaraynaynaa anigoo waliba ku hadlaya maamulka telefishinka Somali News aad baan u cambaaraynaa waxaan leenahay wuxuu u baahan yahay xorriyad wuxuu u baahan yahay cadaalad walaalkeen Abuja aad baan maasantii بسم الله الحمد لله رب العالمين ما أنتم حاسكوا صباحنا أنا وقال الله مجا ميديها مجا ورباهين الصوماليات إن وري أبوجا إنه عدالة هلا إن السعودية أفرتني لبع الشيء كبدن أفرتن الشيء كبدن الحرية هاي وح شرعكم محرنا وحلو هاستلا هذا كما ورهاينه قف شخصيات الحرية هاي مركو حنك عدسنا دولة الصوماليات هذا أمنية هذا كل شيء هذا له يعني أردت جواب دقيق كسب بحياة ملاحظة ذلك يعني أردت جواب دقيق كسب بحياة عدسنا إنه حرودي سهلة يبدأ من الوفيرن